waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo ka shaqeeya magaalada Muqdisho. Ana waxaan oran karaa ilaa yaraanteydii markii aan yaraa waan jeclaa. Hadda markaan noloshaydii miyiga dib ugu laabto, xusuusteyda dib u celiyo, waxa soo baxaysa ilaa markii aan yaraa inaan jeclaa qoraalka. Markii aan yaraa haddaan u laabto, waxaan jeclaa wax gacan laga sameeyo, waxay noqdaan wax gacan laga shaqaysiiyo. Waxaasaan aad u xiisayn jiray. Nin Soomaali oo dhalinyaro markaan ahay waxa ugu horreeya soo jeedinaya waxa weeye akhris qoraal la'aanta bulshada Soomaalida halkay ka joogto. Suugaanta Soomaalida nugula naanaysay Soomaalidu way gabaydaa la yiraahdo aan la qorin oo meesha laga saaro jiritaankii ahaa in nugula naanaysay ama loola aqoonsanayay inaan nahay qarankii gabayada meeshuu ka baxaya. Waxay ila tahay in wax la qoro waa jiritaanka ummadi la yeelanayso. Waxaan kula talin lahaa qofku intuusan wax qorin oo inuu wax qoro uusan gaarin marka hore horta inuu wax akhriyo. Qofku wuxuu qoraa qalinka markuu qaadanayo wuu qorayaa wax isaga gudihiisa ku jira macluumaad uu hayo. Marka hore qofku inuu macluumaad badan kasbado oo akhris badan sameeyo, baarid badan sameeyo, taasaan ku talinayaa. Waxa dhan waa inuu yeeshaa si guud qofku waa inuu akhris badan sameeyana ku talin lahaa.